abidkay intaan buug qorayay ama akhriyayay waa kow inaan akhriyo buug far Soomaali ku qoran buugaas oo koobsaday dhaqanka Soomaalida dhirta ka baxda dhulka Soomaalida suugaanta iyo mahmaahda Soomaalida badankooda buugan waxaan ka helay in ka badan 100 geed oo iskugu jira geed qodaxeed geed nugul geed xiisaan geed qaraar geed buureed geed gaar geed hagow geed ugbaad iyo geed sumeed dhirta la isku daweeyay iyo habka la iskugu daweeyay waxa kale oo aan ka helay buugan sodomeeye mahmaahood iyo suugaan kale oo fara badan malahayga layguma eedayn karo haddii aan ku doodo in afkeennii hooyo ay wanaagsanaa sii libdhayo guud ahaan afkeennii iyo dhaqankeennii dan baa looga baxay buugani wuxuu si sugan u caddaynayaa in afka Soomaaligu ka hodansan yahay afafka qalaad 90%. waxa kale oo uu na tusinayaa af Soomaali inuu ka mid yahay afafka ugu da'da weyn dunida sidoo kalena ugu baaxadda weyn uguna farshaxan buugani wuxuu dib u soo nooleynayaa ereyo da'tirsaday oo badankooda xilligan aan la adeegsan ee laga guuray waxaanu kor u qaadayaa waxaanu ka hortagayaa duulaanka iyo loolanka lagula jiro afkeena hooyo ee Soomaaliga qolada wadaadada iyo culimada iyo Ingiriisiga iyo Carabiga oo seeriyaysa ayaan la hadlayaa buugani wuxuu u dardaar warinayaa dhalinyarta afafka qalaad u hanqal taagaysa wuxuuna xasuusinayaa afkii mugga iyo miisaanka lahaa ee mahadhooyinka iyo mahmaahda lahaa waa buug qofkii akhriyaa maskaxdiisa ku baraadhayso una muhanayso dhadhanka macaan iyo quruxda afkeenu leeyahay buugani wuxuu horumarinayaa afka Soomaaliga wuxuuna dhiirigelin iyo dhaxal u yahay inta afka Soomaaliga ku hadasha gaar ahaan dhalinyarta buugani wuxuu noqon doonaa mid la mahadiyo hubaalna si hufan looga hamuun beelo dhaqankeennii hore ee wanaagsan shaki kuma jiro inuu waxtar u noqon doono faca maanta jooga dhalaanka ku soo xiga iyo jiilka iman doona mustaqbalka buugani wuxuu ku tusinayaa isla markaana ku tilmaamayaa inaad barato afkaaga ku hadasho ku gabaydo ku mahmaado kuna xaragooto meel sarena ka gaadho afku waa baadiso afku waa weelka dhaqankeenu ku jiro shakhsiyadda Soomaaliga waxa sumad iyo cadayn u ah afka Soomaaliga haddaan af jirin diin iyo dhaqan midna ma jireen waxa jiritaankooga sugay waa afka sida gurigu ugu baahan yahay nadaafad ayuu afkeena Soomaaliguna ugu baahan yahay daryeel iyo ilaalin fara badan afku waa dhaqan sidii waana cadayntaada rasmiga haddii afka la ilaaliyo dhaqankuna wuxuu ahaanayaa mid jiraya oo waaraya marka ay ereyadu koobmaan isla markaana adeegsiga maalinlaha ah gabaan afku wuu dayacmaa haddiise sida buuggan oo kale loo kaydiyo ereyada afkii runtii way jirayaan dabcan waa la hagraday afka Soomaaliga waxaa rajo weynina gelinaya buuggan oo dabaqabataynaya afkeena goblanka u dhawaaday buuggan waa lifay abwaanka af iyo dhaqan yaqaanka ah ee Maxamed Xasan Ciiga Axmed wuxuu ku faraadeeyay ereyada sii galbanaya iyo xusuusinta meelkada iyo kaalinta afku ugu jiro nolosha wuxuuna ku labalaxaadsaday inta karaankiisa inuu sheeko faneed curisa oo ay ka buuxaan ereyo dunjigii iyo asalkii hore ah ee afka Soomaaliga ku qotoma nasiib waxaan u yeeshay inaan ka mid noqdo hawlwadeennada wax badan ka bartay buuggan manfaca badan buuggan dhaqan iyo dhaxal erey waxa ku jira in ka badan 60 magacyadii ummadda Soomaaliyeed la bixi jirtay magacyadii qurxoona ee af ahaan loo garan jiray ee mid waliba ujeedadiisa watay magacyadii dhaqanka suuban ee Soomaaliga ku fadhiyay magacyadii miisaanka lahaa ee la waafajin jiray
dhaqankeennii ufnaa haddaynu Soomaali nahay waxaynu leenahay waxaynu lahaan jirnay magacyo inoo gaar ah magacyo macnahooga la wada garanayo magacyo qaali ah oo qiimahoogu sareeyo qof wal oo Soomaali ah haddii uu abtirsado wuxuu u gelayaa magacyo miisaan leh waxaa muuqata in laga sii guurayo magacyadii sinjiga loo lahaa oo loo guurayo magacyo ummado kale leeyihiin sida Carab Hindi Turki iyo qaar la mid ah wadda laga weecdo in yar baa ambata dhaqan laga weecdana waddan baa ambata maxaad ku micnayn kartaa dukaanka qof Soomaaliyeed leeyahay ee Soomaali kali ihi wax ka iibsato haddana magac shisheeye loogu yeero bal waa yaab dugsiga Soomaali furatay ee ardayda wax ka barataa Soomaali yihiin ee haddana magac qalaad loo bixiyay maxaa lagu sifayn karaa maxaa kale oo aad ku micnayn kartaa wiilasha iyo hablaha dhasha magacyada ajaanibta ah ee loo bixinayo sababta ku kaliftay in magac macnihiisa la garanayo looga guuro oo loola baxo magac aan la garanayn maxay tahay wax waliba wax ka sii daranay ibnu hebel iyo bintu hebel abu hebel iyo ummu hebel maxaa loogu baahday yaa iska leh xagay naga soo galeen Soomaalinimadu waa sinji iyo sumad u gaar ah bulsho sida Carabnimadu waa u tahay sinji iyo sumad u gaar ah dad gaar ah sida la wada ogsoon yahay qowmiyadaha tirada badan ee ku uuman dunidu mid waliba sumado gaar ah ayay leedahay qofka marka qabku gabaabsi ku noqdo wuu isnacaa wax walba oo isagu leeyahay ayaa la xumaada markaas uu jilcaa shisheeyaha habdhaqankooga inuu isku ekaysiiyo ayuu ku dadaalaa magaca ajaanibka ayaa la weynaadaa waxaa caqligiisa ka dhaadhacdaa in magaciisa laga wanaagsan yahay markaasuu magaciisaba nacaa waxaa buuggan laga baranayaa oo laga dhaxlayaa magac bixintii hidaha iyo dhaqanka aynu u lahayn magacyada buuggan ku jira oo runtii miisaan leh waxay dawo u yihiin bulshadeenna aad moodo inuu ku dhacay cudurrada af nacaybka aad moodo wuxuuna buuggan inoo muujinayaa wanaagga iyo quruxda ay lahaayeen magacyadeennii micnaha iyo ujeeddada lahaa madaxda mas'uuliyiinta siyaasiyiinta suxufiyiinta culimada iyo dhammaan inta wax u sheegta ummadda waxaan leeyahay waa halkii cali sugulle dun carbeede af qalaad aqoontu miyaa waad mahadsantihiin